culimada dariiqada suufida ee al-sunna wal jameeca ayaa muqdisho isugu soo baxay si ay u weyniyaan nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaadee isla markaana ay ku muujiyaan sida ay ugu xun yihiin gefka hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron u geystay nabiga iyo diinta islaamka. wadooyin ka mid ah muqdisho ayay socod ku mareen iyagoo watay boorar ku xardhan magaca nabiga. qasiidooyin nabiga ay ku ammaanayeen ayaa wehel u ahaa inta ay wadooyinka ku lugeynayeen, waxaana hor socday fardo qayb ka ah isu soo baxooda. taalada daljirka daahsoon ee degmada Boondheere ayay socodkooda ku qatimeen. waxaana goobta ka hadlay culimada al-sunna oo ay ka jeediyeen khudbado ay kaga hadleen muhiimadda isu soo baxaan. mar walba waxaa laga rabaa ummadda islaamka in ay ka jawaab celiyaan mar alla marka nabigooda sharafkiisa lagu xadgudbo. waliba intaas kaliya maahan waa ogtihiin caalamka hadda aan ku noolnahay waxaa ku noolaa kara nin kale quwa iqtisaadiya, awood dhaqaale iyo awood military. muslimiinta marka waxaa laga rabaa ma ahan inay noqdaan mustahlikiin, dad qaata waxyaabaha la soo sameeyay lama rabo. waxaa la rabaa inay noqdaan muntijiin, inay ayaga wax soo saaraan. waxaa la rabaa cilmiga iyo aqoonta in la hormariyo. adduunyadan waxaa waaye nin aan awood lahayn kuma noolaa karo, waa ogtihiin. Macron wuxuu ku xadgudbay naftiisa iyo dadka uu mas'uulka u yahay. ma aha waxa uu ku xadgudbay islaamka iyo ahalkiisa ma aha, mana gaari karo. awalba wuxuu ahaa gaal daciif ah oo eeyaha qaylinaya aan looga duwanayn u ahaa, aan qiimo agtayna aan ku lahayn. kilaabu naaxiyaadku ka mid ahaa sida sheekheenu ku tilmaamay, laakiin wuxuu dumiyey uu tirtiray oo cawaaqib xumo u dhaxal siiyey ummadda uu madaxda u yahay maanta. waxaan dareensiinaynaa Macron xadgudubka uu geystay xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam, inuu ka helaayo gurigiisa, inuu ka helaayo kursiga uu ku fadhiyo, inay dhaxlayso cawaaqib xumadaas ummadda isaga madax ka dhigatay. waxaan dareensiinaynaa caalamka waxaa maalmahan si xoog leh u gilgilay coronavirus wax la yidhaahdo COVID-19 oo caalamka oo dhan halakeeyey. laakiin musiibada maanta taagan waxay tahay Macron oo u dhiganta COVID-19 waxaa u dhigma oo ka dhib badan Macron kelimada uu dhahay, cawaaqibkeedana waxaa dhaxlaya halkii ay kala caalamka dhan saamaysay. waxaanu isugu soo baxnay farxad aanu ku faraxsannahay annagoo caawa ay tahay layladii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo dhashay. sidaad garanaysaan nabigeennu wuxuu dhashay salaada subax dabadeed, habeenkana qayb ayuu ka qabay, maalintana qayb ayuu ka qabay. isniin buuna nabigu dhashay sala allahu calayhi waaalihi wasallam. waxaan kaloo isugu soo baxnay cambaarayn aan cambaaraynayno, lacanad aanu korka uga tuurayno Macron madaxweynaha Faransiiska. shacabka Faransiiska ee muslimiinta ah waanu jecelnahay, walaalaheen weeye. ma'zada iyo musiibada qabsatay shacabka Faransiiska ee muslimiinta ah waanu la qaybsanaynaa murugada qabsatay. dowladda federaalka Soomaaliya ayay sheegeen in ilaa hadda ayaan ka maqal jawaab ay ka bixisay hadalka gefka ahaa ee loo geystay nabiga, iyagoo uu baaqay inay eryaan safiirka Faransiiska u jooga Soomaaliya, cilaaqada diblomaasina ay joojiyaan. aawa hogaamiyayaalkayni, aawa madaxdayni, aawa hogaamiyayaalkii islaamka may ka hadlaan, aawa madaxdayni dowladda Soomaaliya ee federaalka ah. hadalkooda ma aanaan maqlin. ha ka hadlaano, ummadda ha ka soo baxshaano, xiriirka ha u jaraano. waa ognahay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya oo siyaasadooda ka hor yimid ayay buubiyeen. safiirka ee Faransa waa inay buubiyaan, waa inay waddanka ka eryaan, waa inay safaaradooda kala soo dhaqdaan. lacnatullaahi calayh. ikhwata alkiraam. haajir abduqaadir, RTN TV, muqdisho.